Kaaliyayaasha Volodymyr Zelensky ayaa ka jawaabay hadalkii Joe Biden ee ahaa in madaxweynaha Ukraine uusan rabin in uu maqlo markii sirdoonka Mareykanku ku wargeliyeen in Ruushka uu diyaarinayo duulaan, wuxuuna ku tilmaamay wax aan macquul ahayn. La taliyaha madaxweynaha Ukraine Mikhailo Podolyak ayaa ku dhaleeceeyay Mr. Biden inuu eedo dusha u saaray Ukraine, halka afhayeenka Mr. Zelensky Sergey Nikiforov uu sheegay in hadalku malaha uu u baahan yahay in la caddeeyo maadaama ay ahaayeen la hawlgalayaashooda oo aan dheg jalaq loo siinin walwalka ay ka qabeen duulaanka Ukraine. Mr. Nikiforov ayaa u sheegay warbaahinta La Liga ee ku hadasha afka Ruushka in Zelensky uu 3 ama 4 wada hadal dhanka taleefanka ah la yeeshay Mr. Biden ka hor inta uusan dagaalku bilaabin, kuwaas oo ay isweydaarsadeen faahfaahin xaaladda ku saabsan. Waxa uu sidoo kale sheegay in Ukraine ay dalbatay tillaabooyin ka hortag ah, laakiin xulafadeena ma aysan doonaynin inayna maqlaan. Sidaas darteed, hadalka ka soo yeeray Biden ee ah ma doonayn in la maqlo waxay u baahan tahay in la caddeeyo, ayuu u sheegay warbaahinta. Intaa waxaa dheer, haddii aad xasuusato, madaxweynaha Ukraine wuxuu ugu baaqay xulafadeena inay soo bandhigaan cunaqabateyn ka hortag ah si loogu cadaadiyo Ruushka inuu la baxo ciidamada oo uu xaaladda dejiyo. Halkan waxaan dhihi karnaa in xulafadeenu aysan doonaynin inayna maqlaan, ayuu yiri Mr. Nikiforov. Mr. Podolyak ayaa isla wakaaladda wararka u sheegay in Mr. Zelensky uu si joogto ah ugula hadlayo ujeedooyinka Ruushka, waxa uuna sheegay in hadallada Mr. Biden aysan ahayn kuwo run ah. Mr. Podolyak wuxuu sheegay in Kiev si fiican ay u ogeyd in Ruushka uu horumarinayo xaalado kala duwan oo uu wada isballaarin. Volodymyr Zelensky wuxuu leeyahay sirdoon tayo sare leh. Madaxweynaha ayaa sidoo kale si taxadar leh uga jawaabay dhammaan erayadii iyo digniintii asxaabta. Su-aashu waxay mar walba ahayd maxay noqon doontaa baaxadda duulaanka. Ugu dambeyntiina, muhiimaddu waxaan u malaynaynaa inay macno la'aan tahay in lagu eedeeyo dalka kaas oo 100 maalmood ka badan ku jira dagaal buuxa. Haddii wadamada muhiimka ah ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan rabitaanka militari ee Ruushka iyagoo si fiican u garanaya, ayuu yiri Mr. Podolyak sida laga soo xigtay Interfax. Shaki la'aan, baaxadda duulaanka oo aan aragnay 24 Febraayo ayaa ka naxay dalal badan oo ay ku jiraan, ayuu raaciyay Mr. Podolyak. Isagoo la hadlayay deeq-bixiyayaasha dimuqraadiga Jimcihii, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Mr. Zelensky uusan rabin inuu maqlo markii sirdoonka Mareykanka ay ururiyeen macluumaadka sheegaya in Ruushka uu isku diyaarinayo inuu duulaan kusoo qaado Ruushka. Wax sidan oo kale ah ma dhicin ilaa dagaalkii labaad ee adduunka. Mr. Biden ayaa yiri, waan ogahay in dad badan ay u malaynayaan in laga yaabo inaan buunbuuninayo, laakiin waan ogaa inaan hayno xog ku saabsan in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu doonayo inuu soo galo xadka Ukraine. Shaki kuma jirin, Zelensky ma uusan rabin inuu na maqlo. Inkastoo Mr. Zelensky uu dadka ku dhiirigeliyay hogaamintiisa intii lagu jiray dagaalka, diyaargarowgiisa duulaanka ama la'aanta ayaa weli ah arrin muran badan dhalisay. Toddobaadyo ka hor intii uusan dagaalka bilaaban 24 Febraayo, Mr. Zelensky wuxuu si cad uga carooday iyadoo saraakiisha maamulka Biden ay si isdaba joog ah uga digayeen in duulaanka Ruushka uu aad u soo dhow yahay. Waqtigaas Mr. Zelensky wuxuu sidoo kale ka walaacsanaa in durbaanka dagaalku aanu dejinaynin dhaqaalaha jilicsan ee Ukraine.